boobka dhulka iyo hanti urursiga xasan sheekh maxamuud ka wada Soomaaliya iyo horumarka madaxweyne Ciro ka wada Somaliland ee ku dhisan aragtida siyaasadeed iyo isbedelka taabagalay ee muuqda madaxweynaha xasan sheekh awlaadaydu waa dhamaadeen ilaahay hortiisa ilaahay ka cabso meel waa karamada oo warta ku dhimanayna barta ku xarig kaga jalayaano bisi ka qabanaya xarunta ciidanka socdaalka Somaliland oo kamid ah adeegyada la soo gaarsiinaya muwaadiniinta iyo gobolada oo kamid ah maamul daadejinta barnaamijka maamul daadejinta xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale Somaliland labaduba waxay leeyihiin hoggaan siyaasadeed oo kala mabda iyo qaab maamul ah balse si weyn ayaa la isu barbardhigayaa labadooda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo madaxweynaha Soomaaliya waxa si adag loogu dhaliilayaa isla markaasina ay soo taraya boobka dhulka iyo hanti urursiga madaxtooyada tagaysa madaxweynaha la gorgortamaysa lacagta asaa u shubaysa asaa ka qaadanay full stop saas dal ma loo dhaqi karaa su'aasha taag wasiiradii markay arkeen in madaxweynaha dhulkii hantidii qaranka iibsanayo isaga uu iibinayo ayagana wax alaalo wixii ka gaaraan inay qaataan noqotay war dawladii dhameed waxay noqotay xagee wax ku jiraan intee manfac yaala xagee shilin laga helaa meel kasta waxa la sameystay company la yiraahdo company khidmadaadka wax kasta khidma kor saaran doorasha laga hadlaayo warkeeda iska daay war meesha dawlad ma loogu imaanaa wax laga wareego ma loogu imaanayo hadal ku taagan ina fahamna way taas maxaa yeelay hantida qaranka qaar aan laba gedi karnaa jira ilaa afti dadweyne ay gasho waa xirooyinka ciidamada kuwa kalena waxay leeyihiin procedure iyo nidaam loo gado midna lama soo maray ina ogtiin oo malayna madaxweynuhu markii yawm alqiyaamaha waxba laga su'aalaya dadkan ma inta ma haystaan oo hay kala malaha oo buushashkaasaan degannahay shingalaha xunkaabaan degannahay ilaahay hortiisa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay si weyn isu soo tarayaan cabashooyinka ka soo yeedhaya shacabka Soomaaliya isla markaasina ay ku dhaliilayaan madaxweynaha Soomaaliya waa xasan sheekh maxamuud inuu boobay hantidii danta guud waxaana sidoo kale cagaf la mariyay guud ahaanba dhulkii ay deganaayeen dadka danyarta ah iyadoo markaasi laga gadayo shirkado ganacsato iyo siyaasiyiin kalsoonidii shacabka ee dawladnimada ayaa hoos u dhacday mucaaradka iyo bulshada rayidka waxay ku tilmaameen boobku inuu yahay dib u dhis ku salaysan jeebka siyaasiyiinta halkii uu ahaan lahaa danta guud ee shacabka Soomaaliyeed waxaana jira sidoo kale tuurno xooggan oo la xidhiidha heshiisyada caalamiga ah ee shirkadaha Turkiga Imaaraadka iyo Shiinaha kuwaasi oo aan lacagahooda si cad loogu soo bandhigin shacabka Soomaaliya siyaasiyiinta dawladda ku dhow ayaa lagu eedeynayaa inay ka faa'iideystaan qandaraasyada halka shacabka Soomaaliya aanay wax badan ka helin waa boobka iyo barakicinta shacabka danyarta ah runtii waxaan si adag u cambaareynayaa boobka dhulka iyo barakicinta lagu hayo danyarta gaar ahaan qoysaska askarta dagaalada kula jira qawaarijta arrintan waxay sababtay in isbuucii hore uu dhacay isku dhac ciidan oo ciidamada dawladda ay ciidamadii halka deganaa ahaa taasoo kaliftay in ay hoos u dhacdo kalsoonidii iyo midnimadii haddii aanu nimaadno dhinaca kale Cabdiraxmaan Ciro waa madaxweynaha Somaliland mashaariicda horumarineed ee Somaliland dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha Somaliland waxa ka socda mashaariic waaweyn oo xukuumadda cusub ka hirgelinayso guud ahaan gobolada dalka iyadoo muddo kooban uu xilka hayay madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro waxa socda dhismayaasha wadooyin cusub kuwaas oo isku xidhi doona gobolada dalka iyo degmooyinka dekedaha waa sida Berbere iyo garoomada diyaaradaha ee Somaliland ayaa lagu samaynayaa ballaarin si loo soo jiito maalgashiyada caalamiga adeegyada bulshada waxa kordhay dhismaha cisbitaalada dugsiyo iyo jaamacado ayaa la taageeray si loo kobciyo waxbarashada dhalinyarada
cirro waxa uu sidoo kale xoogga saarayaa xidhiidhada caalamiga sidii ay Somaliland u soo jiidan lahayd maalgashiyada shisheeye. waxaa jira qorshayaal lagu yaraynayo shaqo la'aanta dhalinyarada iyo in haweenka lagu daro ka qayb qaadashada dhaqaalaha. arrintani ayaa saameyn weyn ku yeelatay bulshada Somaliland, waxaana ay si weyn ugu bogaadinayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waa Cabdiraxmaan Cirre oo muddo kooban xilka hayay. shacabka ayaa u arkaa in madaxweyne Cirre yahay hogaamiye ka duwan kuwii hore. haddaba warbixintani ayaa fariinta ay dirayso waxay tahay isbarbardhig guud. Soomaaliya waa Xasan Sheekh Maxamuude waxaa ka muuqda cabashooyin la xidhiidha boobka dhulka, musuqa iyo hanti urursi. kalsoonida shacabka ee hoggaanka dawladeed oo ah mid hoos u dhacday, halka Somaliland ay ka muuqato dhismo iyo horumar, isla markaasina ay la jaanqaadayso waddamada horumar ee caalamka. marka la isbarbar dhigo xaaladda Soomaaliya iyo Somaliland, waxaa muuqata laba sawir oo siyaasad ahaan kala duwan. warsame kaafi cabdirashiid, Ergabo.